roobdoontu waa dhaqan soo jireen ah oo bulshada Soomaaliyeed ay adeegsan jirtay waqti dheer, balse sanadadan dambe waxa uu muuqdaa mid qariib ah, isbedelna uu ku yimi qaabkii loo sameyn jiray bari hore. Xilliyadii hore dadku waxay madaxa ku qaadi jireen loox iyagoo socod dheer wada galaya, taas oo astaan u ahayd bariyo iyo is-hoosaasin Ilaahay hortiisa. Dugsiyada Quraanka ayaa la fasaxi jiray, ardayduna qayb ayay ka qaadan jireen. Inta fagaara la iskugu tago ayaana la samayn jiray duco iyo isbaraarujin. Hase yeeshee sanadadii dambe dhaqamadan qaarkood ayaa yaraaday sababo la xiriira isbedel nololeed iyo waayaha casriga ah. Macallin Faarax Xirsi Maxamed oo waayihii hore iyo kan haddaba u soo joogay ayaa sharaxaya sababaha isbedelka iyo sida dhaqankan loo ilaalin karo ama loogu bedeli karo qaab waaqici ah. Magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayuu ugu warramay Cabdirasaaq Haajirow. dadkii dambe oo quruntii dambe qolaba marka roob doonta waxay fiiri jireen dadka ugu taagta yar ama dadka birimageedada la yiraahdo ay kamid yihiin caruurta ba anaga markii aan dugsiga dhiganayno kale roob doonta qaabkay u sameey jireen iyo qaabka maanta loo sameeyo xogaa way kala duwan tahay. Maanta waxa la sameeyaa dadka unbaa inta baxaan ee garoon isugu tagaan, salaad baa lagu dukadaa, waa lagu kala dareeraa. laga yaabaa in Ilaahay markaasi roob keeno, in roobkii aan weli la helin way dhici kartaa, labadaas way dhacdaa. Waxaa kaloo dhacda mararka qaar in la isfaro in la soomo 3 bari oo sida sunnada soo aroortay ah. 3 bari markay ummadana wada soomaan intii soomi kartaa, ka bacdi maalinta 3aad la roob doomo banaanka loo baxo, iyana taasina waa jirtaa, waana mid soo aroortay. waxyaabaha aad ku xasuusato in roob doonta waqtigaagii ma yihiin? ardayda ayaa waxay ahaayeen laf dhabarka barnaamijkaas. Macallimiinta dugsilayda markii dadku ay roob waayaan ama la abaarsado, iyaga loo tagi jiray, macallimiinta la dhihi jiray roob doon sameeya. Tusaalahan marka waxaan xasuustaa xilligeeni oo kale dugsiyo dhowr ayaa magaalada ku yaalay Gurceel. Marka waxa la sameey jiray in ardayda dugsi walba macallin walba oo dhinaciisa uu roob doonta uu ka aado. Waxa la sameey jiray wiilasha ayaa waxa loo dhiib jiray looxyo madaxa ay saar jireen, waxay u socon jireen si oo saf ah. Sida safka markay isku raacaan bay waxay qaadi jireen faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum midraran. ayadaasay ku celceli jireen. waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha ducooyinka ay dhihi jireen, ilaahow waliyo wali nuuro raaxeeyo roobna si. oo qofka horjoogaha u ah ardaydaas hor socda ayaa aqrinaya, inta kalena waxay leeyihiin ilaa roobna si ay ku horinayaan, ay ku celcelinayaan. ilaa marka waxaa laga yaabaa inay socdaan 1 kiiloomitir 2 kiiloomitir inay socdaan magaalada banaankeeda u baxaan, ka bacdi ay magaalada ku soo noqdaan. tusaalahan waxaan xasuustaa galabba waxa dhacday ardayda way jecel yihiin fasaxa markii loo sheego. dugsiga 9 saac baan imaan jirnay ilaa 3 saac habeenkii baan ka bixi jirnay. oo tusaalahan 9 saac markaan imaano casharadaan akhri jirnay, 8 saac markii la imaado casirka marka la dukado, galabtii casharkii oo fardambaha baa laga bixi jiray. haddii casharka laga baxo waxaa la isku diri jiray qoryaal la isku diri jiray habeenka lagu subciyo. subci wuxuu gaarayaa 3 saac habeenkii buu gaarayaa, ama mararka qaar 2 saac marba suu ku dhamaado. maalin baa waxa dhacda marka macallinka wuxuu yiri inta la abaarsaday galabta waa la roob doonaa. roob doonta marka ka soo noqotaana toosaad u baxaysiin oo wax fasaxantiin. ardaydii way ku farxeen barnaamijkaas fasaxa ah. waa la soo baxay si niyad leh baan loo roob doonay. roob doontii markaan magaalada laga soo baxay oo la laabanayay baa dhinaca bariga ah baa sayn ka curta. saynkii curatay isla intaanan magaalada gaarin buu nagu yimid anagii. marka waxay muujinayaan dadkaas ducafada ah ee taagta daran in Ilaahay codkooda uu maqlay. waana Ilaahay sida uu nabiga kaleey salaatu wasalaam uu lahaa, ma laydin kugu hiilinaya ilaa biducafaikum. dadkiina taagta yar baa laydin kugu hiilinaya. waana midda keenta in dadka taagta daran markii la yiraahdo la roob doomayo la soo bixiyo, dadka qolqolka ku jiray gabdhaha aan
soo bixi jirin oo dhan ha soo baxaan ducadaas inay ka qayb qaataan oo allabarigaas waxaa laga yaabaa hal qof aamintiisa keliya in ilaahay uu ku siiyo marka inahaasaan ka xasuustaa maanta ka waran macalin Faarax maanta iyo xilligaas maxaa farqi u dhexeeya roobdoonta maxaa farqi u dhexeeya xilligaas iyo maanta farqi u dhexeeya horta waxay tahay kow horta looxyihii waaba laga tegaba looxdii oo ardada ay qaadan jirtay waa laga tegay maba jirto arday inta loox loo dhiibo baxaya ama ogolaanaya maba jiraanba ardaydaas markaas ma jirin wax mashquulinaya wax oo ay dhib ku haya ma aysan jirin loox way qaadan jireen wayna ku raalli bay ku ahaayeen laakiin maanta ardada joogta looxiin ma yaqaanaanba oo buugba inta loo dhiibaa ama kitaab bay wadaan taas ayaa marka waxay tahay farqiga ugu weyn ee keenay in roobdoontii qaabka loo sameynayo ay wax weyn iska bedeshay midda kaloo isbedeshay waxay tahay xilligaas anima xasuusto dadka inta inay isku soo baxaan bannaan la wada yimaado oo saa lagu roobdoomo sida midda maanta jirto kale ma aysan jirin isla markaasna haddana iyadoo ardadu saas ay u roob doonaan baa ilaahay isla markiiba ducadooda u aqbali jiray marka xilligaas waxa roobdoomi jiray waxay ahayd ilmaha yararka la dhihi jiray haye roobdooma maanta inigi laakiin maanta dadka waaweyn baa roobdoona looxii lagu roobdooni jiray iyo ardadii yareereed oo roobdooni jiray iyo socodkii ee wareegahayo la samay jiray maanta oo sida aad sheegtay meesha ay ka baxeen saamaynta halkii ka jirta labada dhinac xilligii hore iyo xilligan maxay tahay saamaynta timid saamaynta jirta waxay tahay horta xilligaas ilmaha roobdoomaya waxay ahaayeen ilmo saafi ah qalbigooda uu nadiif yahay aan mashquul adduunyo iyo wax kale aysan ku furnayn ilmo looxa iyo ku xirnaanshaha quraankaas kalaamkaas mahana wax kale aan ku xirnayn bay ahayd laakiin maanta ilmaha jooga teknolojiyadda saamaysay farsamadan casriga ah saamaysay internetkan baa saameeyay cunugan roobdoomaya maskaxdiisu wuxuu ku maqan tahayba waxaan hadduuba ay jirtoba arday samaynaya ardaygan roobdoomaya maanta oo roobdoontaas ka qayb qaadanaya hadduuba jiro qalbigiisu waa mashquulsan yahay kuma xirna alla kuma xirna quraanka kuma xirna balse waaba arday maqana jooga marka dhibaatada ugu weyn oo saamaynta keenta waxay tahay ardaygaas wax mashquuliya ma jiro laakiin ardaygan teknolojiyad baa mashquulsan qofkan roobdoona laftiis teknolojiyada qofka waxaa laga yaabaa roobdoonta inuu aado inuu video ka soo duubto oo ku raadiyo dadka daawanaya inuu ku raadinayo oysan muxuu ahaa niyadba ka ahayn laakiin maalintaas roobdoonta la sameynaa waxay ahayd roobdoon niyad ah oo ilaahay muxuu ahaa toos loola khitaabaya iyadoo lala khitaaban khitaabka marka muxuu ahaa maanta uusan jirin marka laga soo tago roobdoonta xilliyada abaaraha dhacda maxaa kaloo allabarya ama ducooyin oo ay dugsiyadu samayn jireen oo hadda maqan waxaa jirtay shaafiin wax la yidhaah oo xijaab ahayd tusaale ahaan erayada qaar walow aana wixii aan qaadi jirna aana xasuusan laakiin waxaan xasuustaa bismillaahi shaafi bismillaahi caafi bismillaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicu alcaliim waana xijaab nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay in lagu duceysto qofkii 3 jeer inuu dhaho xilliga uu galabaysanayo iyo xilliga uu subaxaysanayo subaxdii iyo galabtii oo la raba in la qaado walow aan subaxdii la qaadi jirin shaafiinta laakiin maqribkii la qaadi maqrib kasta shaafiintaas intaanan subaca bilaabin waa in la akhriyo waajib ah sidoo kale waxaa la akhri jiray quraan raatiba faatixada la akhri jiray oo 114 aayatu kursi sidoo kale waa la akhri jiray yaasiima waa la akhri jiray quraan raatib ah baa dugsi kasta lahaa wixii oo dhan maanta marka ma jiraan ardaygan macalinka inta uu la joogo maba arday maqana joogaha meeshaan fadhiya laakiin maanta wixii dhan way isbedeleen oo ma arkaysidba meel dugsi lagu duceysanayo oo ilaahay lagu baryayo waa xagga cunadii iyo waxyaabihii ardada looga farxi jiray ayaga maxaa iska bedel dadkan maanta jooga way ka wax badan yihiin kuwii markaas jooga marka loo fiiriyo laakiin xagga waxbixinta ayaa lagu kala iimaan badan yahay oo qofku wuxuu jeclaa waalidkiisu inuu si fiican uga farxiyo ardayda si quraanka cunugan ilaahay ugu sugo marka dhinacaas waxaad moodaa waxbixinta cuntooyinka iyo sidii kala ahayeen maanta
waxaa la bixiyaa waa buskut ama nacnaca la bixiyaa ma jirto wax kale oo la bixiyo xilligaas laakiin cambuuladaas oo iyo hilibkaasba ugu jiri jiray